waxaa la baaray godkii asxaabul kahfiga markii ugu horeysay ma rumaysan doontid mucjisada la yaab kale ee lagu arkay subxaanallah haddii aad muslim tahay waxaan kaa codsanayaa muuqaalkan like saarto siina sheer gareeyo si uu gaaro dhammaan muslimiinta uga faa'iideystaan dalka urdun waxa uu caan ku yahay goobaha taariikhiga ah waxaana la mid ah dalka masar iyo dowladaha ku hareeraysan sida ciraaq iyo suuriya waxa ay leeyihiin raadad iyo goobo taariikhi ah kuwaas oo lagu sheegay qur-aanka kariimka iyo kutubta qadiimiga ah waxaana ka mid ah godkii asxaabul kahfiga oo ku yaala magaalada rajiib ee dalka urdun magaaladan rajiib waxa ay dhanka bari ka xigtaa magaalada caasimadda u ah dalka masaafo yar oo 7 kiiloomitir ah meeshaas waxaa lagu sheegay qisada 7 dhalinyarada ahaa ee asxaabul kahfiga iyo eygoodii kuwaas oo ilaahay markuu dilay 309 sano kadib uu soo nooleeyay waxaana ilaahay u soo bixiyay inuu ku sugo xigmadiisa iyo aayaadkiisa dadka deegaankaasna ay masjid uga dhistaan ilaa haddana waa goob weyn oo taariikhi ah dhammaanteenna waan ognahay qisada asxaabul kahfiga suurad dhammaystiran ayaana lagu magacaabay qofka booqda goob noocani oo kale ah waxa uu xasuustiisa ku celinaya inuu booqdo goobo kale oo ay taariikhda islaamku raadad ku leedahay sida qaahira farqi weyn ayaa u dhexeeya markii hore iyo hadda oo ay wasaaradda awqaafta urdun si la yaab leh u diyaarisay godkan markii aad goobtan iyo godkan booqatid waxaad arkaysaa inay nadaafadiisu aad u sarreyso ma jiro albaab ama waardiye irid taagan oo kugu hagaaya godkan si walba oo aad cilmi ugu leedahay goobtan kuu suurto geli maydo adigoo kaliga ah inaad gasho muuqaaladii ugu caansanaa ee goobtaas laga soo duubay waxaa ku jiray mas-uul si weyn ugu takhasusay oo cilmi u xogaha taariikhiga ah iyo kuwa islaamiga ah ee goobta waana injineer maxamed al-xunaydi oo ah kormeere ka socday wasaaradda awqaafta ee jordan injineerkan oo inta badan goobtan ku sugan ayaa halkaas u jooga inuu sharaxaad ku filan ka siiyo dadka dalxiisayaasha ee halkaas soo booqda qof walba oo goobtaas tagana waa uu ammaanayay sharaxaadda injineerka haddaba maxay ku arkeen culimmadu godkan markii ay baareen hadda ayaan sharaxaynaa arrinta kadiska ee halkaas ay kula kulmeen baaritaankii casriga cusub godkan lagu sameeyey waxa uu dhacay sanadii 1963 taariikhda miilaad waxaana wax ka qoray cilmi baare rafiiq waafi dajaani waxaa jira goobo badan oo la sheego inuu ku yaalo godkan asxaabul kahfiga sida ciraaq turkiya iyo yemen laakiin markii baaris dheer la sameeyey kadib midka xaqiiqada ugu dhow ee runta ah waa midka sawirkan ku jira ee ku yaala deegaanka rajiib ee dalka Jordan maxaa yeelay 7 qabuurood ayaa goobtaas ku yaala 4 qabuurood albaabka dhanka midig ayay ka xigtaa 3 qabuuroodna albaabka dhanka bidix ayay ka xigtaa laakiin qabriga eygu waxa uu ku yaala albaabka dhexe hortiisa sidoo kale godka korkiisa waxa ku yaala raad dhisme qadiimiya oo sida masjid ah taasoo ay tilmaamaydo aayadda quraanka ee ah qaala alladina qalabu ala amrihim lanattakhidanna calayhim masjida gudaha godkan waxa uu u samaysan yahay qaab markaz ah 3 mixraam oo waaweyn oo iska horjeeda camal akademiyadda fiqiga islaamka ayaa xaqiijisay inay goobtani tahay meeshii qur-aanka kariimka ah lagu sheegay sidoo kale kutubo badan oo ay cabaasiyiintii qoreen iyo kuwa laatiini ah ayaa sheegaya isla arrintan sidoo kale xidig 3 geesood leh oo qadiimi ah ayaa ku yaala godkan dood weyn ayayna dhalisay xidigtan maxaa yeelay hunduusiyiinta iyo yuhuudda ayaa caabudo xidig noocani oo kale ah laakiin culimo badan waxa ay ku ijmaaceen inay tahay xidig romaani ah oo loo isticmaali jiray qurxin islaami ah waxaana dhagaxan ku qoray oo loo nisbeeyey boqorkii la oran jiray hibatullah badri bin xawi sanadii 1077 hijriyada raadadka masjidkii lagu sheegay suuratul kahfina ilaa hadda waa uu ku yaalaa like saar siina sheer gareey